ciidamada ammaanka ee gobolka Togdheer oo howlgallo kala duwan ka sameeyay maalmihii u dambeeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa howlgalladaasi waxay ku soo qabteen khamri gaadhaya 150 litir iyagoona khamrigaasi ay qabteen ciidamada saldhigga Aadan Salabaan ee magaalada Burco taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer gaashaan la sare Maxamed Faarax Nuur ayaa ka warbixiyay khamriga ay soo qabteen ciidamada nabadgelyada ee gobolka Togdheer taliyaha ayaa sidoo kale u mahad celiyay saraakiisha ciidanka ee heeganka ugu jira hariya habeenba nabadgelyada magaalada Burco iyo guud ahaanba Soomaaliland anoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka waxaanu halkan ku soo bandhignay khamri aanu qabanay labadii bishii 2021 kaasoo ay qabteen saldhigga Aadan Salabaan oo saldhigga aan dhex taaganahay taliye saldhiguna dhinaca inaga xigo runtii waxay ka heleen meel qabyo ah oo lagu xaseeyay kadib markii dadweynaha la xiriireen isla markaa ay dirsadeen cidii ay la xiriiri jireen waxay u cadeeyeen inay halkaa alaab taalo kadibna way ku baxeen waxayna ka soo heleen 150 dhalo xashiishada hore oo ay hayeena iyaduna waxa weeye garsoorka hortaala guud ahaan waa nabad weeyi sidii caadada ahayd waan istaba wadnaa oo kolba waxbaa noo soo baxaya raadkii waynu ku taagannahay dadweynahana aad baanu maartay u ammaanaynaa wada shaqaynta ciidanka booliska kiishiya debleed iyo askarta ka hawlgalaynaa 100% ammaan iyo bogaadin baan soo jeedinayaa hawshuna way soconaysaa saa lagama harayo waa joogto xalay lafteeda gaaribaasi nagaga baxsaday maartay cidiye fareed nagaga baxsaday Land Cruiser madow waanu qaban doonaa insha Allah inuu dib u noqday inuu soo galay kama garanayo waxaan leeyahay dadweynaha sida aad noo caawin jirteen noo caawiya ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.